I told these people that we can help Somalia to defeat this, because if it is a question of madaxweyne xasan sheekh ayaa sharafta ka qaaday Soomaaliya iyo Soomaali meel walba ay joogto asaga oo raadinaya wuxuu dhuuntiisa u mariyay ayuu wuxuu sharafta ka qaaday ciidanka Soomaaliyeed iyo midnimadii qaran ee Soomaaliya ku taagneed Uganda oo nagu hoosaysa ayuu raashin u doontay halkan waa isha wararka si aan wararkan oo kale inuu ku soo gudbino fadlan muuqaalka share gare leegna saar bismillaahir rahmaanir rahiim halkan naga daawanaysaan waa isha wararka fadlan muuqaalka doo ku soo gaaro leeg iyo share waa dhankina madaxweynaha Uganda ayaa indhaha kaga dhacay madaxweyne xasan sheekh iyo wafdigiisa huwa idin soo iibin karnaa dareesna waa idin soo gadi karnaa xataa cuntada dib ma laha laakiin mushaar idin kama bixin karno ciidankeenu kuma jiri karaan in bil walba dad kale mushaar looga doono gorma ayaad nabad heleysaan hadalka waxa yiri madaxweynaha Uganda la nabad baa u baahan tihiin tusaale ahaan hadii anigu aan haynin faqiir ah oo doonaya inuu nabad helo dalkayga iyo dadkayga ayaan leeyahay aan difaacano dalkeena aan difaacano gurigeena sababtoo ah nabad ayaan u baahanahay hadalkan ayaa u muuqday mid ku yimid cabasho iyo barortan uu la tagay madaxweyne xasan sheekh Museveni. I told these people that we can help Somalia to defeat this, because if it is a question of weapons, we can buy them and give them uniform. We can buy even food. We can share, but what we cannot manage is salary. Salary every month of big number we can't manage. So once you say salary, then you now go to UAE. They pay 1 month. Then here Qatari, I don't know what. Turkey, what? So when will these people get security? When will you get security? Because you need security. If I'm a poor man, I don't have money, but I can defend my home. I can mobilize my son and my brother, and we defend our home. Nobody is paying us. We want peace.